wanaagsan dhageystayaasha iyo daawadayaasha aynu jecelnahay oo meel kasta oo aad joogtaan. Halkani waa xogta suuqa media oo aad kala socotaan baraha bulshada aynu ku leenahay internetka sida YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter-ka iyo aaladaha kale ee baraha bulshada. Dhageystayaal iyo daawadayaal, xogta suuqa media waa warbaahin toddobaadle ah oo idin soo gudbin doonta inta badan xaaladaha guud iyo kuwa gaar ahaaneed ee dalkeena hooyo, kuwaasoo isugu jira siyaasad, maaweelo dhaqan, caafimaad, waxbarasho iyo ganacsi, taasoo ujeedka guud uu yahay kobcinta fikirka, wadaniyada, dhaqanka iyo isku xirka garaadka guud ee ummadda Soomaaliyeed. daawadayaasha iyo dhageystayaasha aynu jecelnahay oo barnaamijkeena waxaan ku soo qaadan doonaa wareysiyo kala duwan oo ay marti inoogu yihiin taliyihii hore ciidamada badda Soomaaliya Admiral Faarax Axmed Cumar Faarax Qare oo hadda ah madaxa hay'adda cilmi baarista xeebaha Soomaaliyeed. sidoo kale waxaa barnaamijka idinku soo gudbin doonaa mid ka mid ah saraakiishii shirkadii kalluumaysiga Soomaaliyeed ee Shifco oo hadda ah mudane ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya Xildhibaan Cumar Shariif Jeeg. wareysiyada mas'uuliyiintan oo aad u dhaadheera ayaa waxay ahaayeen kaydka wareysiyo kulul isla markaana intooda badan ahaa kuwa aydan hore u maqal ama aydan daawan ama ugu talagalay in xiliyadan oo kale aan idin soo gudbiyo. shirkada qaarna anaga lahayn laftayda dawladayna lahayn qaarna dawladayna dawlada kala ku shirka qaar kalena shati caadi ah la siiyaa wasaaradda kalluumaysiga soo warsadaan sharciga ka yaala shati caadi ah la siiyaa ay ku kalluumaystaan shatigaas shuruudo badan oo leeyahay iyo si wax loo kala qaato wixii mataqaan la helo marka arrimahaas wax dhib lama ah waa wax qaanuunkan ku sheegay ay hoos imaanayaan si qaanuuniya ayaa badda loo kalluumaysaa ama dawladdu hala haato dadkaas ama shati hala wasaaradda qaabishan shatigaasiisa arrintu waa inay si qaanuuna ku socoto. shirkadaha xilligaasi Soomaaliya iyo dawladaha kale ee heshiiska ku inay kalluumaystaan kuwa kamid ah kuwa anagu aan lahayn bal waxay noo waxaa kamid ah kuwan hadda oo noo hayo ninka la yiraahdo kuwa noo hayo ayaa kamid ah shirkadda Fayla Digital Talyaani annaga ayaa shirka ku ah ولينا واشق يا مراكبتا وهذا فدغو وحويا فدغودو اما xafiiskooda weyn muunna noo joogo maarey guudka Yemen oo jooga marka waxaan filayaa markii dawladdu degto inay maraakibta iska soo noqon doonto yani hawshalkeedii ka socdo waa arrin waa xoolaan leenahay weey oo ninkan u dhiiban wili noo hayo Soomaaliya marka barbareyn weyn taas kama jiro aniga Talyaaniga ayaa markaas markii maraakibta iyo dawladdu iska soo noqdaan ay la xisaabtami karaan barbareyn kama tahay waa markii aynu ka soo tagno burcad badeedan waxaa xustay in ay hadda soo baxeen waxyaaba burcad badeedu in sababta ay ku aasaasmeen ay qayb ka ahayd shirkadaha kalluumaysiga ee dalka ka aasaasmay xilliyadii dawlad la'aanta. arrintu waa basiga su'aashu yani sida hadii loo dhigo waxay noqonaysaa burcad badeed maxaa sabab waxba ayba la isweydiin karaa. burcad badeedu dhowr sabab leh. sababta koobaad waxay burcad badeedu waa dhalinyaradii kalluumaysatada ahayd way laftooda iyo kuwii dekada ka shaqeeyay iyo kuwa maraakibta la saari jiray waxaa jira nidaam caalami ah markab kasta shaqo u baahan shaqaale u baahan dekada ayaa shaqaale diyaarsan joogaan oo hore loo diyaarsan oo shahaadooyin leh ayaa laga yaa maraakibta markabad weyn diinta ka shaqeysa dekadayna soo gashay shaqaale anu aan leenahay ayaa la saari maraakibta marka siyaalo badan looga faa'iideeyo marka maanta ragga burcad badeeda waa raggii waayay waxay badda ku lahaayeen ma markaba la shaqaa ka shaqeysa ma kalluun hadda taano ama kalluun hadda taano ama shaqo kala ka qabtaan shaqadii waayeen yaa shaqada u diiday ku kalluumaystada maraakib waaweyn oo dawlad la'aanta ka faa'iiday maraakib waaweyn baa timid kalluunka iyo xaalufisay shabaasi way jarjartay haddii la hadli tagana wiilashii tubooyin biyo kulul ay ka buuxaan ay indhaha ka gelsheen doontii ay ka gembiyeen
markii dambana hubay ba qaateen si ka soo raacday marka waa fikireen waxaan war maxaan qabsanaa wada jeedaa dhinaca kale waxay dareemeen dhulkoodii biyahoodii in duur kale iska qaadanayaan gardarro ku qaadanayaan wadaninimana waa taabatay baahina waa taabatay taas waxay keentay marka ayagu inay ishubeeyaan ayaguna ilan hubaa looga soo eriyey inay ishubeeyaan berihii hore waa ishubeeyeen maraakib kalluumaysay soo qabsadeen xoogaa lacagay keen hase yeeshee lacagtii waa moodaa xoogaa inay la macatay oo maraakibtii badda xaalufadiisa kuma simane kuwa iska marahayay oo xamuulka ahaay ayay markii dambe usoo dhigteen maalintaasi horta burcadbadeed noqdeen xaqiiq dhinaca kale haddii la eego maraakibta iyaguna qashina ku duugaysa badda sunta haraaga nuclearka kiimikada iyo waxyaala yaroo khatar ku ah deegaan badeedka oo noolaha badda khatar ku ah iyo inta cunta iyo intii dabaysha baddu ay u soo marto waxyaabaha degan arrintaas iyaduna dhinaca kale ay ka taabata dhalinyarada oo waxay u garteen dhulkoodii in yani la jiro lagu wadayo mashaakil taasuna waxay sii gelisay marka qiiro wadaninimo oo ah inay ka aargutaan maraakibta badda marayso dhan sababta marka burcadda keenta horta waa sidaa ayaga lafsadooda sidaasay ku leeyihin waxay ku leeyihiin qaadiyaasha adduunkana waa ka sheegaan annagu waxaan difaacaynaa biyaheena khayraadkeedaan difaacaynaa ciidan badeedaan nahay oo dalku leeyahay maalintii la arko dawlad difaaci karta biyaheedana shaqada waan iska dhaafaynaa oo shaqadaan ku jirno waan iska dayin sidaasayba ayagu hadda taagayin marka burcadbadeedu warkay sheegayso ama sidaa ha ahaado ama si ka duwan ha ahaadee sababta laakiin waa dhabta ahay waa sidaan soo sheegay talyaanna ma laga yaabaa in qaab ganacsi uu noqday oo shirkado ganacsi oo dhinaca kalluumaysiga ay maalgeliyaan burcadbadeedan isla markaana si lacag badan looga helo maraakiibta kale ee isaga goysta xeebaha Soomaaliya ee dalalka kala duwan ay iska leeyihiin caalamka horta wararka ka soo baxayo meelaha aad u badan yihiin wax dhab ah iyo waxaan dhab ahayna weli daraasad caday karta lama hayo inta daraasada la sameeyo waxaa la leeyahay waa hagaag intaas aynu ku dhaafno codka hobolada qaranka Soomaaliyeed tilmaamahoodii iyo waraysigii ka horeeyayba aynu u gudubno markana horta niyahow haddii si loo fiiriyo waxaan kuu sheegaa waxa haddeertaan nimankan ku dhaliyey in ay maraakiibta afduubtaan ay maraakiibta qabsadaan oo ay madax furasho weydiistaan horta waa dembi haddii runtii alla laga cabsado waa dembi ayaga kow laga galay sababtoo dembi laga galay ayaa waxay tahay nin kasta oo Soomaali oo ama qabiil ama awey ku faanayo ayaa wuxuu sameynaya inuu baxo China tago ama tago Hindiya ama tago Talyaaniga ayuu maraakiib la soo heshiina kontraal la soo sameysana maraakiibtii badda soo gelina labada nin saddex nin talkiisu saarana sidii marka kalluumaysiga badda ku shaqeynaya ninkaas isaga marka wuxuu fiirinaa oo kaliya barsantugaal xataa sida la rabay waxba looma siinayo dawladaha ula soo heshiiyey laakiin intaas uu fiirinayo xataa 50 kun ama 100 kun markaas uu helayo ama 200 kun laakiin baddaas la xaalufinayo waa dadka dharbaaxay waxay ku noqotay dadka xoolaha deganayeen ee shabaagtooda inay ka soo iibsadaan ama ilaa inay xamar u yimaadaan ama boosaaso u tagaan boosaaso iyo xaafuun waxaa loo kala socdaa 48 saacadood ayay marka shabaagta xagga geystaan ayaa ay dhigtaan baddi ayaa marka inuu iska soo maro shabaagtii ayuu soo qaadanaa annaga ka mid ah shabaagyo badan aan soo qaadi jirnay
nin shabaab maskiina soo iibsaday oo ka soo iibsaday boosaaso oo keensaday xaafuun ama baargaal oo la dhibaato qaxar meeshaas loo marayo ilaaha og balka dhulkaas anaa maray haddii shabaabkiisa la qaato ma beri haddana inuu shabaab kale haddana soo iibsado baduu soo dhigaa danta wuxuu kalifa lacagta uu shabaabta ku bixin lahaa inuu dooniyo ku gato hub saarto ama kuu qabsan karana qabsado kuu burin karana buriyo sababtoo ah meel eriyo waxaa la waayo oo maanta ay ka kaluumaystaan kaluumaysatada ee xoolaha degan maanta waxaan tusaale kaaga soo qabanaa dowladda yemen waxaa ku jiri jirtay maraakiib sharciyeysan ilaa 80 ah wasiirkii cusbaa ee kaluumaysiga ayaa heer wuxuu sameeyey siduu shacbiga ugu daneeyo in maraakiibtaas badda ka wada saaro ku rabo ilaa 6 marka 7 marka u dhaho kalluunka maraakiibtan baabi'in lahayn waa inay shacbiga ka faa'iidaystaan maantana shacbiga yemen aad bay u dhismaysaa Soomaaliya kheyraadkeeda haddii la iska dhaafo maanta beriga ama haddii la iska dhaafo macnaha dhaqaale oo dowladda shisheeye la weydiisanayo Soomaaliya oo dhan maanta waxa ku filan kheyraadka ka soo baxa badda laakiin badda systemka lagu shaqaysan lahayn aqoon uma laha nin kastana maraakiib soo geli waxaan xasuustaa haweenada kamid ah xaafuun markaba la socdo ayaan waxaan fiiriyay xaafuun isku wareegeeda waxaa leedahay ma wadan kala imaad sababtoo nalalka ka wada daaran waa wada maraakiib ilaa iyo gaarayaan boqolaal maraakiib ah kulli niman baa wataan oo qabaano u ah oo la soo heshiiyey marka haddii ay nimankii kululaadeen maanta nin kasta xaq uu leeyahay inuu doon qaato uu markabku arkado iska weerarka caraa ka keenayso waxa dhibkaan keena waxa waaye carawa ah shabaabtoodii oo laga qaadanayo doomankii oo markii ay meeshii kalluunka ay kalaasanaayeen maraakiibta waxa badaynayso maraakiibta hub saaran iska daa wax kale doomankii Bakistaanka waa hogaysan maraakiibta Shiinayska waxay sameeyaan biyo karkaraayo oo diinima leh inay dadka ku shubaan dad badan oo maqaarkooda fuuqnaya jiro oo annaga ognahay aan ka dhaxgalo hadda markii loo fiiriyo marka shirkadiina waxa lagu xantaa in ay dalka Soomaaliya ay keentay xamanka waaweyn oo ay ku jiraan K-Sunta nuclear-ka arrimahaasi bal ka waran arkadan ahaantii shirkadeena oo maraakiibta shiifko ayay si gaar ahaan uma aysan keenin jirin ama sun bama qaadi karaan oo marka loogu talagalay kalluumaysi laakiin systemyo oo waxaa jiray oo haddeertaan macnaha xataa documentskeeda iyo aan xataa jecelnahay shirkado badan oo dad badan hadda nagala soo xiriira arrimahaas raadinaya inaan siino oo dhab ah oo ay maraakiib kale inuu maanta muuyo la soo heshiin oo badda sun lagu soo shubo waxaa caddeynaysa markay ahayd taariikhda 2000 oo 5 sano ka soo wareegtay 3 dooniyadood oo niman cadaan ah oo nimankaas u dhasheen Ingiriis laakiin kuwa ku dhasheen ah South Africa inaan anaga ka kaxeynay ayagoo markab weyn oo maraakiibtaasi sunta soo qaada iyo 3 dooniyadood oo sida kuwa turistaha ah ayaan anaga amnigooda waxaan ilaalinayna ilaa Baabalmaqdis inaan geeyno oo marka laakiin operationkooda ay fushteen nimankaas Ingiriiska ah documentskooda Yemen waraao waxaan sii marsiinay doomankii ayaa anaga nagu soo xirteen afran oo Ingiriisan ka saarnay markabka qaaday wuxuu ahaa intuuna kwarto nimankaas Ingiriiska waxaan geeyay ilaa iyo cadan kadib maamulkii ayaa shiray wixii lagu wada heshiiyay markaas kontraad lagu soo wada galay sunta markay soo dhameystaan operationkooda ay kala qaadan lahaayeen waa kala qaateen shaqaalaheena oo markaas markabka saaran anaga ballanqaad waxaan la sameeyay in la siiyo ilaa iyo $500,000 abaalmarina ilaa haddeertaan wax ma siiyay ma jirto nimankiina ilaa waxaan geynay Baabalmaqdis kadib hal mar kale oo kontraad ayaa jirtay oo haddana sidoo kale ay u yimaadeen markii labaadna markab kale oo maraakiibteena ka mid ah ayaa hooshooday kaalin weyn kala qaaday anaga inaan waardiye u noqono mooye maraakiibteena waa sun laakiin maraakiib kale oo lagu keeni jiray waxaana qorshahaas badanaa samayn jiray waxa waaye niman Ingiriisa u dhashay dad South African oo la yaqaano oo maanta xataa musawaradooda adreskooda iyo cilaankooda la heli karo waqti loo baahan markii adinka hawlahaas adinka ay fulinaysiin ma soo kama u fikirin dan Soomaaliyeed mise waxa aydan dalin ba ka fikirtaan wallahi annaga dad shaqaalana annaga aqoon uma aanan leen oo sumbad lagu shubay annaga professionkeena waa profession kalluumaysi ah laakiin danta ayaa waxa kugu kala fiican annaga sida askari camalan askari waa la xukuma annaga ninkaas muuyaha maanta iska daa annaga ka hor maasha aan ka hor imaanay maanta dowladda ayaan ka hor imaan karin hadda federaaliga oo dhisan cid ka hor imaan karta balka waa nin xiriirkiisa meel kasta la leh dowladda Yemen oo xiriir leeyahay dowladda federaaliga oo xiriir leeyahay waa ku jira waa xilwaan
كبيري هذا كلحظة وكنت أقول وبابا وبعدي ومن بحثن ورمت بيري وبابا كبيري هذا كلحظة وكنت أقول وبابا بقدرني daawadayaal iyo dhegaystayaal sidaad u dhantihiin intaan mar kale hawada ku kulmi doono anigoo ah maxamed macalin ismaan oolmaan oo barnaamijka idin soo diyaariyey islamarkaana idinla socodsiinayay waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo halkani waa xogta suuqa midia كبيري هذا كلحظة وكنت أقول وبابا